in uu ruuxu isagu uu guriga joogo haduuna guriga joogayninna in uu qaato had iyo jeer marka uu hindhisahayo facility ama uu ku hindhiso meeshan gacanteena maaragtay la yiraahdo kala goyska jiqilka halkaas oo kale inuu afka saarto oo saa oo kale u saarto halka uu ku qufaco taas inta kale muhiimka waxa way ruuxu inuu sanka iyo afka iyo gacmaha wajiga iyo ay kala daayaan Soomaalidu oo laga daayo sanka gacmaha iyo afka laga daayo laga fogeeyo intaas waa muhiim maanta barnaamijka waxaan ku wareysanaynaa Dr. Sadiq Said oo ah dhakhtar ka howlgala wadanka Sweden runtii fursad aad iyo aad qaali u ah ayuu nasiiyay dhakhtarka waxaanu kaga faa'iideysanaynaa bal in aynu cudurkan coronaviruska ma taqaanaa adduunyada maanta fadhiisiye ama curyaamiyey xag dhaqaale iyo xag caafimaadba in aynu bal isku dayno in aynu wax ka fahanno marka waxaan kaga faa'iideysanaynaa su'aalo kooban oo markaa aan isleeyahay waxay yihiin waa muhiim waa nuucaya kadibna barnaamijka aynu gelina barnaamijkan gelina hadda maanta waxaan nasiib u yeelanay Dr. Sadiq Said oo ah dhakhaatiirta Sweden ka mid ah oo runtii waqtigiisa qaaliga ah nasiiyay si aan u wareysano ama u weydiino su'aalo ku saabsan cudurka coronavirus Dr. Sadiq soo dhawow waana ku mahadsan tahay waqtiga qaaliga ah aad nala qaybsatay waan dhawahay Saciid iyo ragga kale ee kula shaqeynaya aad baad mahadsantihiin inaad soo wacdeen idinkoo ka shaqeynaya dan Soomaaliyeed aad baa u mahadsan tahay dhakhtar waxaan ku weydiinaynaa su'aalo dhowr ah sida la socotid waxa adduunyadii baryahan fadhiisiyay oo dhan dhaqaale iyo dhan caafimaadba viruskan la yiraahdo coronavirus muxuu yahay cudurkan waad mahadsan tahay Saciid coronavirusku markii laga hadlahayo waxyaabahan kala duwan ama cudurradan kala duwan ay keenaan inta badan waxyaabahan fayruusaadka loo yaqaano fayruuska laftiisa u baahan qeexitaan laakiin waxba si geli maayo marka coronavirusku waa group dhan ama family ama wax la yiraahdo Soomaalidu waxay dhihi jirteen boqortooyooyinka xayawaanka yar yar ee micropathogenska sida maaragtay viruska bacteriyada parasiteka mangalka waxyaabaha noocaasa ee faraha badan qayb kamid ah ayaa waxa la yiraahdaa virus marka qabiilka viruska qayb ka simid ah oo xoog badan baa waxa la yiraahdaa coronavirus marka coronavirusku ma aha wax hadda soo baxay iyo wax cusub midna waa wax jiray inta badanna xayawaanaadka la xiriira waana ilaa iyo boqolaal nooc oo coronavirus weeyaan oo isbedbedela boqolaalkaas nooc ee viruska marka 7 qaybood oo kamid ah ama 7 nooc oo kamid ah ayaa ibn aadamka u soo gudubta ibn aadamkuna ama dadkuna uu isu gudbiya 7daas afar kamid ah waxa weeye waa iska dhib yar yihiin waana sida hargabka oo kale weeye sida hargabka kale ku yimaadaan waa wax oo maaragtay mild weeye ama lindrig symptom buu leeyahay yani calaamad yar buu leeyahay oo si fara badan saddex kamid ah ayaa waxay yihiin kuwa dhibka badan leh saddexda kamid ah laba hore inoo soo mareen mid waxa weeye midkii inoo soo maray taqriiban 2002 la oran jiray SARS-ka ama 2002 ilaa 2004 ayuu jiray qaybo kamid ah adduunka ayuuna ku dhacay wuxuuna u dhacay shakliga la yiraahdo epidemic ku dhacay epidemic waxa weeye in virus ama waxyaabo kamid ah microbiology-gu ay meel mucayan ah ama dal mucayan ah ay si aan caadi ahayn hal mar ugu faafaan oo xoog badan marka si epidemic ayuu u dhici jiray coronavirus 2003
waxa SARS baa la oran jiray SARS isaga marka cudurka SARS baa waa severe acute respiratory syndrome baa la oran jiray severe acute respiratory syndrome dadkuna waxay dhihi jireen carabiguna waxay odhan jireen متلازمة التنفسية متلازمة التهاب التنفسية الحاد الوخيمة وإحنا عاصق الذي جرى كوكلا إسنا جري أو ميرس لورن جري أو أنت بدن استجونا عربها كصوبحي أو قيب كلا أم نوع كلا أو كمدها كورونا فيروس كا أو أنت بدن عربيس كهالبيون وحلي جهدو أما قيبها الدول العربية وبدنا استجونا مجلس وكذا ميدل إيست ريسبيراتوري سيندروم كورونا فيروس بالورن جري استجنا أما هدول يكون متلازمة التنفسية في الشرق الأوسط إحنا عاصق العرب ترى مركا saasay ahaayeen labada qaybood haddana waa corona virus kan cusub ee loo bixiyay wax la yiraahdo COVID-19 ka weeyaan midkaas oo loo cilaamiyay oo WHO da qosay inuu yahay hadda uusan ahayn sidii waagii hore mid oo epidemic oo wadan kale ku dhacay laakiin pandemic ah oo ku dhacay adduunka oo dhan gaarahay marka taariifaadka iyo definitionka xataa uu leeyahay iyo ayaa xataa qaybo kala duwan marka la fiiriyo WHO ay u macnaynayso sax marka saas weeye viruska saddexda qaybood bay ahaayeen hadii aan ku socdo hadda inta uu yeelay hadda su'aaliga dhexgelinaynin COVID-19 ka ama coronavirus ka hadda jira isaga laftigiisa waxa loo yaqaanaa virus ahaan coronavirus SARS-CoV-2 baa la yiraahdaa oo maaragtay waa severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 way kii hore coronavirus 8 buu ahaa marka kan waa 2 way ama afka Swedish ka yaa ka wada laba ama hal kan hadda waa kii labaad ilaa hadda waxa uu galaaftay ama dadka uu ku dhacay sida ay centerka weyn ee disease prevention and control Europe uu leeyahay ama markas muqaawamada iyo ka hortagga cudurrada Europeanka ugu muhiimsan uu leeyahay laga soo bilaabo 31 December ilaa iyo maanta 17 wuxuu ku dhacay 180,159 ruux ku dhacay ilaa haddana wuxuu galaaftay nafardan 7,103 ayuu galaaftay wadankeena Sweden 3 ruux ayuu ka galaaftay dadka uu ku dhacayna waxaan filayaa maanta inay ahayd 1,164 meelahaas inay tahay Sweden si guud haddaan dalkeenu hooyo Soomaaliya u noqdan ilaa hadda sida ilaamiyeen wasaaradda caafimaadku hal ruux baa positive ah dhimashada waxaad tiri waa 7,103 qof miya adduunyada oo dhan okay adduunyada oo dhan ha inta badan waxa lagu dhintay waa China Talyaaniga Iran iyo Spain iyo France shanta wadan ayaa waxay yihiin wax ka badan 100 ruux adduunka intiisa kale uu ka yar yahay 100 marka Talyaaniga Chinaha waa 3,226 Talyaaniga waa 2,158 Iran waa 8,153 Spain waa 3,109 France oo ugu yar shantoodaasna waxa weeye 148 shanta wadan ayaa jirta wax adduunka ka badan 100 ruux dadka uu galaaftay waan gartay haddaan su'aasha labaad u gudubno Dr. Sadiq sidee lagu kala qaadaa cudurkan muxuu yahay si habka la isugu gudbiyo ama loo kala qaadi karo waa habkee cudurradu waxay ku gudbaan duruqyo fara badan oo kala duwan cudurkan inta badan ama coronavirusada oo dhan intooda badan waxay ku dhacaan oo ay galaaftaan ama ay waxyeelaan intooda badan sababka calaamaadkooduna inta badan waa calaamaad la xidhan habdhiska neefmareenta oo ah inuu ruuxu yeesho cuna xanuun inuu ruuxu yeesho qufac inay ruuxa neeftu ay dhibto oo uu neeftu ay maaragtay ku istaagto kuwaas ayaa waxay yihiin marka qaarkood waxyaabaha markii laga hadlahayo dhinaca calaamaadkiisa uu waxyeelahayo xagga inuu ruuxu yeesho cuna xanuun inuu yeesho isnuuba ama waxa la yiraahdo inuu maaragtay xidhmo sanka iyo sarxida iyo waxaas kuwaas waa kuwa inta badan iyo neefsashada oo marmar ku yar dhigta calaamado guud buu leeyahay yakana si guud oo maaragtay waan u imaan doonaa calaamaadka laga waxaan rabaa inaan ku tuso sida la isugu gudbiyo marka koobaad inay tahay qaybta tanafuska inay tahay oo ah in ruuxu uu maaragtay ama hindhiso oo markuu ruuxu hindhiso ay ruuxi kale hindhisada waxa dheecaanka ah jirkiisa ka soo baxa afkiisa marka uu qufaco ruuxu qufacaas isagana waxa ka soo baxa afkiisa iyo markuu ruuxu uu siinsado
siinkaas dulduulkiisa waxa ka baxa ee ruuxuna arkayn ma waxaan wax weyn oo ruuxu arkayo waxyaabaha uu arkaynin ee rasaas carabtu dhaha waxyaabo dulduul oo kala ah oo yar yar ah oo ruuxu aad ishu ma aragtaya ama ishu ay arkayso yar yar ah ayaa soconaya marka ilaa 1 mitir oo kale wixii ama 1 mitir taqriiban lama dhanna adu meelahaasna adu 1 mitir iyo wixii ku dhow inahaas haduu ruuxu ka fog yahay uma badna inuu gaadho marka qaarkood waxay dhahan 10 talaabo dadka qaarkood ku sii kala tagahaya laakiin taqriiban haduu ruuxu 1 mitir wixii ka shisheeyo waxay u baahan tahay inuu ayna gaadhin andhuufta inta ayna gaadhi karin ruuxa hindhisay oo kale inahaas waa la isugu gudbiyaa marka taas waxa ku saabsan jihaaska tanafusiga ka imaanaya ama qufaca ama hindhista ah ama siinsi ah ama duufsi dadka kolba waxay u yaqaanaanba waa la isugu gudbiyaa qaybta labaad ee muhiimka iyada la isugu gudbiyo waxa weeye waxay dhahaan contactiga labada ruux inay istaabtaan oo taabashada ama salaanta oo kale dhunkashada oo kale yani jirka oo si mubaashira oo toos u taabta jirka ruuxa kale ee xanuunsan yani labada qaybood ayuu noqon hayaa labada qaybood ee ugu muhiimsan ee ruuxa inuu maaragtay cudurka uu ka qaado uga gudbiyo ruuxa kale haddaan ku weydiino calaamadihiisa maxaa ka mid ah maxaa lagu garanayaa in cudurka ama viruskan uu igu dhacay iyo in uu hergeb igu dhacay maxaan ku galgaran waayo waxa hadda aad sheegaysid inta badan hergebkan waa waxyaabahaas buu leeyahay midda koobaad waxa weeye inuu kugu dhacay iyo inaad calaamahada heshay farqi baa u dhexeeya cudurku wuxuu leeyahay wax la yiraahdo incubation stage ama incubation period carabi waxay dhahaan wax la yiraahdo fatratul hadana fatro uu jirahayo cudurku oo uusan muuqanayn ruuxa ka muuqanayn laakiin ruuxa jirkiisa uu ku jiro cudurku laakiin ruuxa calaamada uusan lahayn fatrada noocaasa oo u dhaxaysa 2 ilaa 14 maalmood bay dhahaan inta u dhaxayso ka soo muuqan kara ruuxa 2 maalmood haduu maanta oo kale kugu dhaco ilaa 2 maalmood laga gaadho inta badan kuma dhici karo laakiin waxaa dhici karta intuu maanta kugu dhaco ilaa 14 maalmood inaad haddana aad xaamil ahaato cudurku jirkaaga ku jiro oo waxbana gudbinaynin wax calaamadadan aad isku arkin calaamaadku marka ruuxa ka soo ifbaxaya marka koobaad waxa weeye culimadaha aan sheegnay ee ku saabsan xagga neefsashada neefta oo dhibta iyo ruuxu dareemay inuu neefsan laayahay ama neefta ay xidhiidh ku tahay sankii oo xidhma cunihii oo xanuuna qufac intaas wuu isku arkayaa oo jihaaska tanafuska inta badan la xidhiidha iyo calaamado guud oo isku arkayo inay jir xanuun xubna xanuun iyo muruqyo xanuun labadaba qandho iyaduna uu ruuxu yeelan hayo waxa kale uu yeelanayaa calaamaad ka yimaada xagga maaragtay habdhiska dheefshiidka oo wuxuu yeelanayaa ruuxu lalabo ama yakhyaqsi waxa la yidhahda dadka qaar u yaqaanaan ama wuxuu yeelanayaa waxoogaa marar shuban ana uu yeelanayaa ruuxu waxyaabaha kale uu yeelanaya waxaa ka mid a madax xanuun baa ka mid a ama huvid veelkii buu ruuxu yeelanayaa madax xanuun headache buu ruuxu yeelanaya intaas calaamadaha guud ee ilaa hadda loo hayo ee waaweyn weeye intiisa uu horeeyo dhawaan markuu cudurku sii weynaado ee dadka uu dilahayo kala waxyaabo fara badan buu sii yeelan oo waxaa laga yaabaa inuu haleelo ama uu ku sameeyo taasiir ama saamayn organo kale ama xubno kale oo muhiima sida keliyaha meelahaas oo kale laakiin waa marka dambe laakiin intana calaamaadkana caadi ah isaga iyo hargabku maxay ku kala duwan yihiin isaga iyo hargabku calaamad ahaan wax badan oo ay ku kala duwan yihiin ma jirto calaamadahu ku oran karo waxaas waaweyn bay ku kala duwan yihiin ma jirto waxay ku kala duwan yihiin oo kaliya way kala culus yihiin waa security-ga wax la yiraahdo ama xaadnimada say u kala culus yihiin midda koobaad wadankeena Sweden oo kale waxa asal ruux walba uu yimaada calaamadaha ka muuqda qandho iyo calaamadaha uu leeyahay habdhiska neef marinadu ay leeyihiin ama qufac ama nafta oo ku xiran ama hindhiso ama waxyaabaha noocaas haddana qandho leh marka ugu horeysa wax kale intaan laga qaadin waxa laga qaadahayaa hargabka ama influenza proofer baa laga qaadahayaa isla markaas haddii uusan kaasi haynin kadib baa waxaa lagaga shakiyayaa ruuxan inuu hayo coronavirus sidaa daraaddeed marka u horeysa ruuxa inta aan laisla gaarin inkan meesha laga saaro midda kale waxay ku kala duwan yihiin coronavirusku in intii dhiig laga qaado
uu soo baxo waxay qaadanaysaa muddo ilaa hadda lama helin baadhis degdeg lama helin marka fatray qaadanaysaa muddo qaadanaysaa laakiin kan kale ee hargabka waxay qaadanaysaa 30 daqiiqo marka daraadeed markay dadku la yimaadaan calaamaadka ku saabsan sambabada iyo guud ahaan habdhiska neef mareennada markuu ruuxu la yimaado iyo qandho wada socota labada calaamadood asal oo hadduu la yimaado isla markaba ruuxa waxaa laga qaadayaa hargabka baadhistiisa oo degdega baa laga qaadayaa markii laga qaado hadduu negative noqdo markaas kadib baa laga shakiyahayaa inuu yahay coronavirus haddii uu hargab noqdo inta badan coronavirus lagama shakiya ruuxa waxaa loo daweynayaa sida hargabka oo kale markii la fiiriyo hargabka iyo coronaviruska laftigoodu inkastoo laba virus yihiin haddana kala duwan yihiin hargabka muddo hadda la yaqaanay oo muddo uu dadka season walba ama xilli kasta u yimaado haddana markii la fiiriyo dadka ilaa hadda ku dhimanaya hargabka iyo coronaviruska markii la isu celceliyo dhimashadooda wax badan isma dhaamaan ama waxa la yiraahdo mucaddal wafiyaat death mortality rate ama death ratio wax badan isma dheer waa 2.8 2.3 wax noocaas oo kale ah marka ka laftigeeda waxay u baahan tahay in maaragtay la isla fiiriyo marka farqi badan ma jiro markii laga fiiriyo marka ugu horeysa labaad ugu badnaan dadka boqolkiiba 90 wax ku dhow ama 80 wuxuu ku marayaa si miilda oo sida hargabka oo kala ruux ma dareemaya marka dadka aan ka hadlayno waa un dadka uu sii cuslaanayo weeyaan su'aasha kale haddaan gudubno sidee loo yareyn karaa in uu faafo cudurkan maxaa igu habboon inaan sameeyo si aan u yareeyo haddii anigu u dhaco kale si aanan u gudbinin dadka ehelka ah ama dadka ila degan waxaad moodaa isu gudbinta in la isu gudbiyo cudurka inuu ruuxu qaado ama uu gudbiyo labaduba waxay u xidhan tahay inta badan waa mas'uuliyad shakhsi ah meeshani waxaad moodaa cudurkani hadda si guudba laba arrimood ayaa asal u ah number 1 mas'uuliyad baa u ah inuu ruuxu mas'uuliyad qaato mas'uuliyadiisa uu leeyahay talabaadna waa inuu nadaafadiisa qaato yani labada arrimood baa asal ah inuu la yimaado isagu wax la yiraahdo ootiyadarka ama ijraa'aadka isagu isku difaacayo shakhsiyan iyo inuu qaato mas'uuliyadda inuusan dadka kale uusan cudurka u gudbin mas'uuliyadda koobaad ee ruuxa laga rabo waxa weeye si uga badbaado waa inuu isagu sameeyo wax la yiraahdo al-ijraa'aat al-wiqaa'iyya ama is-ilaalinta ka hortagidda isagu inuu waxa Soomaalidu way tiraahdaa ama carabtuba al-wiqaayatu khayru min al-ilaaj yani inaad cudur waxa iska ilaalisa shayga baa waxa ka fiican inaad dawo u doonato marka in ruuxu iska ilaaliyo waa inuu qaato waxyaabo fara badan oo maaragtay talaabooyin wax ku ool ah talaabooyinkaasi waa talaabooyin inta badan ku xidhan ruuxa nadaafadiisa oo ah mesela ruuxu inuu gacmaha iska maydho had iyo jeer markuu guriga ka baxayo iyo markuu guriga yimaado markuu wax cunahayo ka hor iyo kadib markuu musqusha galo ka soo baxo intaba inuu gacmihiisa saabuun iyo biyo iskaga maydho biyahaasi ama haddii ranaadaan ama had qaboobadaan laakiin ruuxu waa inuu gacmaha si joogto ah had iyo jeer isaga maydhaa lambar 2 inuusan ruuxu ku degdegin inuu dadka salaamo ama dadka salaantiisa iyo uu iska ilaaliyo inta uu iska ilaalin karo iyadana waa muhiim gaar ahaan dadka cudurka lagu tuhunsan yahay lambar 3 inuu ruuxu ka fogaado ruux kasta oo qufacaya ama hindhisahaya inuu office-toonda u jiro ama ruux kasta oo lagu tuhunsan yahay cudurka inuu hayo inuu ka qaato in fatra ah maaragtay in labadooda inuu u dhaxaysiiyo waxoogaa hoosan ruux hoosta uuna ka soo gelin lambar 4 waxaa dhici karta inuu ruux u baahdo bahashan spirit-ka ismarina ama alcohol-sha Soomaalidu ay tiraahdo oo kale ruux inuu gacmaha marsado marka uu degdegahayo oo kale aysan suurtagal u ahayn in uu faraxasho saabuun iyo biyo uu ku faraxasho asal ahaan saabuunta iyo biyaha asal ah kuwaasana meel laga heli karaa inta badan kuwaasana asala virusku wax si adag ma aha laakiin marka la faraxaran laftigeeda waxay u baahan tahay ruux inuu garto sida loo faraxaran oo ma aha oo kaliya ruux inuu gacmaha ismarmariyo laakiin ruux waa inuu gacmaha ismarmariyaa waa inuu gacmahana isdhexgeliyo oo isku maaragtay isku daliigo labada gacmood dhexdooda aad isu marmariyo korkana oo gacmaha korkoodaasana ruuxu uu gacmaha mariyo isagana ku dhaqo suulashana si gooni ah uu dhaqo oo suulka iyo suulkaas labadoodaba suulbana uu si fiican oo gooni ah iyagana uu dhaqo oo gacanta markaas si fiican ruuxu uu gacmaha u dhaqo markasta
caruurtana gacmaha iyakana si fiican mar walba oo loo dhaqahayo ee loogu dhaqo marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye talabaad waxa weeye ruux hadduu isku arka calaamaadka isagu inuu leeyahay ma calaamaad hargab ha ahaatee oo waxaas oo kala ma kala sooci karo ruuxu in uu ruuxu isagu uu guriga joogo hadduuna guriga joogayninna in uu qaato had iyo jeer marka uu hindhisahayo festileti ama uu ku hindhiso meeshan gacanteena maaragtay la yidhaahdo kala goyska jiqilka halkaas oo kale inuu afka saarto oo saa oo kale u saarto halka uu ku qufaco taas inta kale muhiimka waxa weeye ruuxu inuu sanka iyo afka iyo gacmaha wejiga iyo ay kala daayaan Soomaalidu oo laga daayo sanka gacmaha iyo afka laga daayo laga fogeeyo intaas waa muhiim waxa kaloo muhiim ah ruuxu hadduu uu noqdo in uu mesela meelo safrahayo kale ama isbitaal uu tagahayo kale ay noqoto inuu qaato bahashan maskiga ee kamaamaadka ama afka la iskaga xidho Soomaalidu wax la iskaga ilaaliyo dhakhaatiirtii ay qaataan haddana adduunka oo dhan ka badatay ama maskaraha taas oo kale muhiimaddu inaad hesho waa muhiim laakiin waxa iyaduna muhiima marka aad iska bixinayso ama aad iska tuurayso inay muhiim iyaduna jiddan tahay oo marka iska tuurayso inaadan intuu ku xidhay inaadan taaban isagoo korkiisa haddii aad taabato waxba iskama ilaalinaysa marka waxaad u baahan tahay haddaad markaad isku xidho kadib xagga kor ka soo xidho iyo labada dhinac inaad diddanba halkan u taabanin intiisan wajigaaga haddaad isku taabato waxa weeye farahaagu ka soo raacaya wixii ku dhacay isaga waxbana kaama celinay marka taasna waa wax loo baahan yahay ruux inay dadku iska ilaaliyaan gabdhaha oo kale marka ay bahalkan xidhan yihiin xijaabka ama maaragtay niqaabka oo kale haddii ay wax badan inuu celinayaba yaa la qabaa haddii مثلا qabaan oo kale waa inayna taataaban korkiisa day taataabtaan uu gaadhaya gacmahoodu gaadhaya marka hadduu gacmahooda gaadho gacmahooda jirkooda kale gaarsiinaya marka ma aha kaliya inaad xidhato laakiin waxaa muhiima inta aad qabayso saad adigu ula tacaamulayso waxan iyo marka aad iska bixinaysaba inaad halkan intaad qabato aad iska bixin inta halka ka soo furto aad saa isaga fogeyso oo meel loogu talagalay marka aad iyadana ku rido taasna waa muhiim marka waxa muhiimka waxa weeye kow adigu inaad dadka ilaaliso oodan cudurka gudbin oo guriga joogto markuu ku hayo dadka waaweyn oo kale مثلا hooyooyinka waaweyn aabiyowga waaweyn haddana laga yaabo inay cudurka qabaan 70 iyo 60 iyo 5 ka weyn waxaa fiican maalmahan oo kale inay guriga iska joogaan inaysan ka doonin meelaha wax laga soo gato oo kale waxba ayna ka soo gadin hadday meel u baxayaan meelo area mucayan ama dhul mucayan oo iska banaan ama dad yar u joogo kale inay ku soo socdaan laakiin inay ka fogaadaan meelaha dadku uu ku badan yahay suuqaqa waxaas oo kale gurigoodana ay joogaan haddii ruux guriga ka mid ah uu xanuunsan yahayna ama uu qufaca haya ama hargab hayo ama calaamaadka hargabka ay hayaan aan dhaho waa inuusan wax contacta iyaka la samaynin oo fara badan oo laga ilaaliyo in laanu waa dadka ugu badan ee cudurrada u ama maaragtay dib uu soo gaarayo weeye dadka waaweyn ee haddana cudurrada ay kala qaba hadda cudurkan ama viruskan coronavirus muddo dhowr bilood waan dhihi karnaa ayuu adduunka joogaa wax daawo ah ma lahayaa hadda ilaa hadda dawo badan ma jirto xaqiiqatan ilaa hadda wax daawo oo lahayaa ma jirto waxa la diidaaya waa in la helo tallaal ama vaccine bahalkan lagaga tallaalo dadka haddii la doono sida kan hargabka oo kale influenza oo kale mid sanadkii walba mar la qaato ha noqdo ama mid hal mar la qaato ha noqdo laakiin ilaa hadda wax soo baxay ma jirto waa laga yaabaa May oo kale meelihii markii loo gaaro in wax la helo laakiin ilaa hadda wax soo baxay oo la og yahay ma jiro waxa kaliya haddii ruuxu uu ku dhaco oo isu maleeyo inuu isagu hayo dhalinyarana uu yahay muhiim maaha inuu isbitaalada iyo waxa ay ku ordo oo meesha laga yaabo inuu dhibka la sii gaarsiiyo waxa fiican inuu ruuxu guriga iska joogo oo isku isolate gareeyo isagu xijir sax wax la gooni isu maaragtay si gooni ah dadka uga baxo si uu dadkana u ilaaliyo oo kale uusan dadka u gaarsiin mas'uuliyadiisana u qaato waa mas'uuliyad caam ah cid walbayna saaran tahay mas'uuliyadan shakhsigay saaran tahay maanta mas'uuliyadani in marka uu ruuxaasi qaato alfadoonka waxa la yiraahdo Soomaali paracetamolka iyo ay tiraahdo waa hay'ada wax kala duwan weeyaan kaas inuu qaato ibriinkana inuu la qaato isagana ama ibuprofenka waxa la yiraahdo 400 mg 3 jeer maalintii kan kalena 1 gram alfadoonka 4 jeer inuu qaato ruuxu biyo badan ruuxu cabo aad biyo badan u cabo si guudna dadku
waxyaabaha muhiimka ee hadda laga hadlayo waxaa ka mid ah in dadku sonkorta ay iska ilaaliyaan. sonkortu waxay waxyeelaysaa manaacada waxayna sahlaysaa in uu durbo tarmo virusku. marka sonkorta ruuxu sonkorta ka culis badan yahay ama ka cabis badan yahay wuxuu u yahay khatar buu u yahay inay isagana ay ku dhacdo. marka sonkortu faa'iido badan ma laha. sonkorta cad ee weliba dadkeenu aad buu cunaa. marka sonkortaas ma wanaagsana. alfidoonkaas waxaasna iyo bahalka ibrinka aan hala qaato hana la isgareeyo oo ruuxu si gooni ah ha u joogo yuusan dadka dhex gelin. Soomaaliya oo kale markii laga hadlayo oo maaragtay dadku ay aad u fara badan yihiin suuqku ay aad cidhiidhi u yihiin ilaa hadda hal ruux baa laga helay laakiin waa wadan iska furan oo laga yaabo meelo badan in laga soo geli karo wadan aan ahayn dawlad central oo xoog badan oo wax wada. marka waxaa looga baahan yahay dadku inay mas'uuliyad qaataan culimaduna dadka ay u sheegaan sida loo tacaamulayo meelaha la isugu imaanayo dadku xoog badan isugu imaanayana la ilaaliyo oo aan xoog la isugu imaanin dadku rakhas walba uu mas'uuliyad isagu saaro. marka al-mas'uuliyya al-fardiyya ayaa waxay tahay inuu ruux mas'uuliyad ayaa waxay tahay maanta waxa waajib ah cid walbana waajib ku ah. gunaanadkii barnaamijka doctor ado aad u mahadsan. maxaa la gudboon bulshooyinta maxaase la gudboon dawladaha ayaan kusoo gunaanadeen. waxaan isleeyahay bulshooyinta waxa la gudboon midda aan sheegay ee ah inuu ruux walba mas'uuliyadiisa qaato ruux walbana isna ilaaliyo dadkana ilaaliyo oo uu ruux walba ku talagalay inay tahay mas'uuliyadiisa iska leeyahay uu qaato waxyaabaha ijraa'aadka aan ka sheekaynay faraxalkii iyo nadaafadii uu aad ugu dadaalo ruuxu taabashada jirkiisana uu iska ilaaliyo salaanta aan ahayn qasabka ama aan daruuriga ahayn ruuxu uu iska ilaaliyo si guud dadku ay wada fahmaan oo saal la isu salaamo gacanta saal la dhoomo iska uu maaragtay si guud la isu salaamo khaasatan dadka qufacaya ama harga ku haya waxyaabahaas oo kale ama dadka aan wada joogin midba meel uu soo maray aan la garanaynin inay maaragtay ay is ilaaliyaan laano macnaheedu ma aha ruux hadduu markaa qufacayn ama waxba aan haynin inay wax u gudbahayaan inay waxba u gudbaynin ma hadduu ruuxu uu xambaarsan yahay waxa laga yaabaa isaga oo maanta oo dhan calaamadayn haynin laakiin uu jirkiisa ku jira inta uu kula joogo inay calaamaduhu ku bilaaban karaan oo ruuxu inta badan ilaa hadda waxaa la leeyahay ruuxu inta aysan calaamaduhu ka muuqanin cudurka ma gudbin karayo. marka waxaa laga yaabaa in ruuxu uusan calaamaduhu haynin oo wada joogtaan muddo dheer oo inta aad wada joogteen calaamaduhu ay ku bilowdaan ruuxu qufac yar uu sameeyo ama hindhiso yar oo kale uu sameeyo waxa xaqiiqada tahayna inuu cudurka yahay. sidaa daraadeed in uu ixtiyaadigu mar walbaba uu iska jiro cabsina ma aha cudurkan dadka u dhimanaya inta fara badan ma badna laakiin waxa dhibaatada ugu badan uu leeyahay waxa weeye culays saarahayaa systemka caafimaadka ee lagu ilaalinayay dadkii kale xanuunsanaa meesha dad kale oo badan baa xanuunsan oo caafimaadku u yahay meesha ay isku daweeyaan oo cudurro badan oo coroniga qaba dadka u tilicsan cudurka inuu dilana waa dadkaas. marka waa in ruux walba uu mas'uuliyadda marka qaato oo dadkii hadduu ilaahay ku samagol yahay uu isku dayo inuu nooleeyo oo ka qayb qaato dadku inay noolaadaan oo nolol fiican ay ku noolaadaan. taas marka waa fardigaas. dawladda waxaa la gudboon مثلا dawladuhu dee ala mid walba dawladdu waxaad weydiinaysa ma dawladda Soomaaliya oo kale maadaama af Soomaaliya ku hadlahayo dawladahan aan joogno mas'uuliyadooda inta badan way iska qaadanayaan maalin walba waxaan ku jiraa shirar hadda intaadan ii yeedhin ka hor waxaan ku jiray shir aan ku sameynaynay khaymoojin ama tenteyn gooni ah oo ka baxsan isbitaalka oo marka dhakhaatiirta oo dhan sida aan u samayn lahayn scenario-ha iyo waxaas yaan isdamar marayni oo lagu kontroolahayo inaysan dadku xataa soo gaadhin isbitaalka laftigiisa nin kastoo calaamaad ka yeesha iyo tendooyinkaas oo u dhisan system aad moodo inuu isdaba socdo oo hal tendhaa laga soo gelayaa hal tendhaa laga sii baxayaa hal meel oo kalaa laga sii baxayaa marka ruuxa soo galay iyo ruuxa kale soo galin muddaa u dhaxaynaysa muddadaana waxaa la samaynayaa in lagu sameeyo meeshii oo tan in la nadiifiyo alcohol siyaabo kala duwan loo nadiifiyo hawooyin baa ku xidhan meesha xataa hawo ma qabanaysa hawada waxaa ku xidhan bahalla qaadahayo oo aad u xoog badan baa ku xidhan marka systemka noocaasa dawladdiida samaysan kartaay ee awood u lehi okay dawladdeena Soomaaliya kuma eedahayo dee ragga jooga oo waa dawlad aan isla wada ognahay innaku waxaan leeyahay ha isku daydo inay xanibto meelaha laga soo galo iyo dadka dibadaha ka imaanaya khaasatan
ereboodyada iyo xuduudaha inta ay kari karto iyadu intayna kari karin dowlad goboleedyaduna iyakana mas-uuliyad baa saaran xuduudaha oo kale in la ilaaliyo lambar 2 waxay mas-uuliyadda ay saaran tahay wasaaradda caafimaadka oo tahay inay system iyo meel uu dadku akhbaarta ka qaato ay samayso lan waxa laga yaabaa cudurku hadduu maalan hadda sii ballaadho oo ilaahay numa keene inta ka sii ballaadho wuxuu culays saari doonaa dadka ka shaqeeya caafimaadka ama boardka ama dadka si guud caafimaadka uga shaqeeya isbitaalada iyo health centerada iyo waxaas culays saari haddaba qolyahaas si dawladdu ay u saacido waa inay jirtaa policy dawladda ka soo baxaysa oo hal meel oo macluumaadka laga qaataa macluumaad aad u fara badan baa dadka gelaya macluumaad ka imaanaya facebooka kuwa ka imaanaya youtube-ka kuwa ka imaanaya qaybaha kala duwan ee maaragtay social media-ha oo wax badan oo kamid ayna sax ahayn marka inay dawladdu yeelato hal qanaad oo dadka laga wacyigeliyo 24 saacna report ay soo saarto adduunka oo dhan Soomaaliya ka hadlaya kadibna adduunka oo dhan ka hadlaya mar walbana ay dhakhaatiirtaasi ay yihiin dhakhaatiir ku takhasusay 2-3 dhakhtar oo loo og yahay inay dadka TV-ga kala hadlaan si joogto ah inta iyo idaacadaha ay kala hadlaan oo ay wargeliyaan sida cudurku ku faafi karo sida laga hortagi karo iyo waxyaabaha loo baahan yahay dadku meelaha loo baahan dadku inay u noqdaan macluumaadku inay noqdaan hal meel ka imaanay aysan ahayn macluumaad dalkan aan joogno kale folki health indicator-ka macluumaadku dhan ka yimaadaan iyaduna waxay ka keentaa macluumaadka gudaha dalka oo la ururiyay oo isbitaalada oo dhan iyo social sterile-saha iyo cid walba iyada ku xiran tahay iyaduna kadibna waxay ka qaadataa European-ka maaragtay xafiiskiisa prevention control-ka ah iyo WHO-da iyo xafiiska kale ee Mareykanka saas ay isugu xiran yihiin marka masaadirta marka innaka wadan ahaan markaan Sweden joogno aan ka helaynay waa masterka kaliya waxa weeye folk health medication meel kale kama helo ama maaragtay hay'adda caafimaadka ee dalka marka saas oo kale in Soomaaliya ay saas kale u samayso agaasimaha guud qaybta infectionka qaybta ka hortagga cudurrada faafa iyo wasaaradda laftigeeda maadaama xagga wasaaraddu ay ka shaqayso oo wasaaraddu yahay isagu ninka hawsha dhabarka ku qaadanaya in ay si degdeg u wada shaqeeyaan gobolada ama ha iskhilaafsanaadaan ama inay iskhilaan hala xiriiraan dadka gobolada ka mas'uulka ah ama wasaaradda ama agaasimada guud hala hadlaan dalka oo dhan iyagu mas'uuliyaddu ay ka saaran tahay hebel iyo hadday kala duwan yihiin iyo haddayna kala duwanayn iyo haddayna isku ra'yi ahayn iyo haddana midana waa risaalo caafimaad iyo fariin caafimaad oo guud oo dawladda la rabo in ay mas'uuliyadda ka qaato cid walbana ay maaragtay la xiriidho macluumaadkana ay wada urursato center ay u samayso dalka caafimaadkiisa meel kasta uu yahay ka warhaysa waxaan rajaynayaa inay qaybaha kale gobolada Soomaalida oo dhan ay la xiriiraan oo ay wasaaradda si ay isu kaashadaan maadaama waxaan uu yahay caafimaadka dadka Soomaaliyeed oo kala xidhnayn oo isu furan tijaar ahaan iyo socod ahaan iyo dad ahaan iyo diin ahaan intaba isu furan waxaana siisay macluumaad aan aad iyo aad u raadinaynay baryahan aniga iyo dadka Soomaaliyeed doctore waqtigaaga qaaliga ah aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waan ku fasaxayaa hadda aad mahadsan aad baad u mahadsantiin boqolkiiba boqol dadaalkiina ayaad Soomaalida ku gaarsiinaysaan waxa la baahan yahay macluumaad ama maaragtay arrimo هذا مدن وعليك السلام ورحمة الله برنامجka maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waad maqlayseen in doctorka uu na siiyey macluumaad aad iyo aad u muhiim ahaa runtii cudurka faafay ee aad maqlaysaan dalkeenina hadda soo caga dhigtay waxaan filayaa in Soomaalidu dhageystaan kadibna de waxyaabihii aanu soo sheegnay ama dhakhtarka uu sheegay ay iska xil saaraan xilalka qof kasta uu leeyahay uu qaato nadaafadda la ilaaliyo salaanta sidoo kale aanan la badin iyo gacan qaadida qofkii qufacaya ama dareema inuu hergebsan yahayna uu gurigiisa joogo ilaaliyana inuusan u gudbin dadka kale waa mahadsantihiin waa inoo kulan dambe is arag dambe iyo ismaqal dambe